إن هي بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله إن أردي سدواد إن شاء الله إن عشرة هرا هنسوق هذاني أو جافا أن كجرنا سدا variables integer سيد لو أبورتو أو محي هذا سida isku darkoodii waxa loo soo bandhigo iyo qaabka maxay ahayd Java ay u shaqeyso marka aad variable abuurin xasas soo aragnay insha Allah casharkan waxa ku qaadanaynaa wax loo yaqaano concatenation sida loo sameeyo ama si la iskugu xiro laba variable sida la iskugu xiro ama laba maxay ahayd sida la iskugu xiro laba array okay marka hadda waa kana online editorkeena soo diyaarsaday marka waan bilaabaa marka waxaan leeyahay public okay text editorkaaga public class main waa fiilkaas ku jira bracketka ifur kadib classka hadda waa kana waa sheegay marka haddana waxaan soo diyaarsanaa main methodka soo diyaarsanaa dabcan waxaan leeyahay public okay waxaan leeyahay public static void main okay string args okay waan soo diyaarsaday marka cashirkeen wuxuu ku saabsan yahay how to concat variables in Java okay sida concatenation loo sameeyo ama isku xiro Java markii la joogo concatenation kan isku xirkeeda calaamadaas waa plus waa soo marka waxa arkeena qaabka si fudud loo sameeyo insha Allah waxaan leenahay meeshan variable koobaad abuurinaynaa oo waxaan nahay Java waa static type language oo ah variable walba abuurinaysid maxay ahayd typekiis ina sheegtid maana marka inti waxaan rabaa inaan abuurto variable integer ah waxaan leeyahay inti num1 typekiisa sheega macnaha equal to alif inti num2 equal 30 okay inti num3 equal qolo kala dan dhaho okay inti result equal inta waxaan leeyahay add result equal num1 plus num2 waa marka isku darka tahay waa tanaacad iskugu darooy waaye plus num3 okay inti product result productna alaab waxa la dhahaa wixii isku dhufanayo la macna num1 times isku dhufashada calaamadaas xidigta waayo ah shift iyo number 8 num2 times num3 okay hadda marka meeshan markii la joogo waxaan rabaa marka inaan maxay ahayd hadda kan add resultigan waxay ii haysaa saddexdan variable oo isku soo dardaray soo kala product resultigan waxay haysaa saddexdan variable oo isku soo dhuftay okay hadda marka daan fiirino oo hadda aan functionka print ln ka aan keensano system.out.print ln hadda sidaan hadda num1 aan dhaho waxaan sameyn karaa num1 haddana mar kale inaan dhaho system.out.print ln sorry meeshan waxaa ka rabaa resultigan ka rabaa waxaan leeyahay add result intan waxaa leeyahay product result marka hadda saas dhaho dabcan page waxaa u sameeyay variable walba resultigiisa soo daawacay hadda run aan dhaho okay meeshan waxaa ka tagay semicolon ka tagi semicolon ka ku dara dabcan mar kale waxaan leeyahay waxaan sheegnay line walba Java in semicolon loo baahan yahay okay waa kana hadda kan koowaad uu isku soo dardaray kan uu isku dhuftay laakiin se hadda waxa saas ma noogu cadeynayaan macnaha oo ah hadala ma la socdo dabcan tan hadda waxaan rabnaa inaan ku qeexno introoyinkan isku soo dardaray ee tahay marka qaabka u sameynaa waxaan isticmaalaynaa wax loo yaqaan concatenation isticmaalaynaa waxaan leenahay waxaan furanaa laba qoysa waxaan furanaa double quotation furanaa iyo double quotation kale laba double quotation markaas u furto kadib waxaan leeyahay the addition
the addition waxaan ka isku darka of ay meeshas markaa joogo marka plus taas oo isticmaalaa inaan isku xiro hadalkan iyo variablekan isku xiro macnaha meeshaan marka waxaa dhihi karaa the addition of plus num1 plus hadan mar kale leeyahay double quotation kala leeyahay an okay num2 mar kale leeyahay hadana plus an leeyahay hadana plus si leeyahay hadana num3 plus double quotation marka inta isku dar plus waana marka hadaan rabo marka ina variable kan add result aan ku sii xiro plus si leeyahay macnaha plus add result marka meesha marka plus ka an num3 is agelina meeshas okay inta marka sidaan waa ku sameeyay marka hadda marka hadaan run aan dhaho waxaad arkaysaa inuu concatenation ka oo si fiican uu sameeyo oo dhahay the addition of 12 and 30 and 100 is 142 weliba meeshaan in isbis dhaxaysiiba intan sidoo kale concatenation kaas uu isticmaalaa macna waxaa dhihi karaa the product of num1 plus concatenation kaas uu isticmaalaa and num2 plus and num3 is plus okay hadda marka hadaan run aan dhaho waxaa arkaysaa sidoo kale inuu intana oo saas iyo waxaan daba dhigto inuu inta ay noqonaa marka concatenation marka concatenationka marka waxyaabahaas faa'iido ay ku leedahay in maxay ahayd laba variable isku xirto string integer isku xirto in isku xirkaas sameeyso marka waxaan filayaa in concatenationka si fiican u fahamteen arday cashirkeena marka aan ku aan ku qaadanaynay concatenation operator in Java meeshaas ayuu noogu egyahay insha Allah.